tartan aqooneed ay soo qabanqaabiyeen guddida ardayda wax ka barta dugsiga sare ee Gar-adag Secondary School oo loo qabtay kalaaska Form 2A iyo Form 2B waxaana munaasabadani goobjoog ahaa dhammaan ardayda wax ka bartay iskuulka macallimiinta qabatay tartan aqooneedkan iyo waliba maamulka iskuulka waxaana madashaasi iba furay maamulaha dugsiga sare ee Gar-adag Secondary School Salaad Jaamac iyo maamulka ku-xigeenka Mustafa oo dhammaantood ardayda soo qabanqaabisay tartanka iyo kuwa ka soo qayb galay u soo jeediyay hadallo dardaaran iyo hoggaan tusaale isugu jira iyo waliba muhiimadda ay leedahay waxbarashadu. Ar-Rahmaanir Rahiim. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Ar-Rahmaanir Rahiim Maaliki Yawmiddin. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي أنو أنفعو آياتها قرآن كاس سبحانه وتعالى إنو أخري أرضي كمدا شيخ كارية وكمدا أرضي دا انت كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركو هراء dhammaan macallimiinta maamulka iskuulka ardayda bahda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. intaa kadib saaka halkan waxaan u joognaa waxqabadka iskuulka soo bandhigidda barnaamijkii taxanaha ahaa ee iskuulku lahaa oo uu ka mid ahaa tartan aqooneed iyo waxqabadka ardayda iskuulka iyo maamulka iyo macallimiinta guddida waxbarashada iska kaashan jireen dhammaan bulshada degmada Gar-adag waana dugsigii sare Gar-adag. muhiimadda maanta halkan aanu u joognaa waxa weeyaan inaanu soo bandhigno arrimahan iskuulku leeyahay oo ay ka mid tahay tartan aqooneed sidayna horu sheegnaba tartan aqooneedkaas oo lagu tartami doono sabjagyada waxbarasho ee ka socda halkan ama dugsiga sare ka socda gaar ahaan maanta waxaynu u qabanaynaa ardayda Form 2yada oo ah kuwa horteena fadhiya ka qayb qaatayaasha gaar ahaan waxa kale oo markaa intaa raaca iyadoo uu inoo soo socday tartan aqooneedku siba aan horu qabanay halabuurka suugaanta oo ku wajahnaa halabuurka iyo kobcinta afka hooyo iyo aqoontaba kaasoo ay ku soo bandhigeen arday ka mid ah dugsigan sare ee Gar-adag. barnaamijkan aanu qayb kaga dari doono oo aynu u samayn doono album iskuulka insha Allah isagoo inoo sii socon doono tartankan qaybaha kala duwan oo ku sii socon doono maanta waxa weeyaan ka aynu magacawnay. haddii aan dul maro waxyaabaha kale aynu inagu jira waxaa ka mid ah waxqabadka guddida ardayda dugsiga oo iyagana aynu waqtigooda u tegi doono haddii la ka dhigo clipkooda waxaanu kala soo bandhigi doonaa haddii la ka dhigo uga mahad celin doonaa shaaliyadda diasporaha librariga iyo maktabadda iskuulka buugaagta ay keeneen iyagana inagoo markaa waxa weeye gaar ahaan nagu duubi doona haddii la ka dhigo. waxyaabahaasu waxa weeyaan waxyaabaha muhiimka ku ah maanta inaanu soo bandhigno ka iskuul ahaan. iminkana waxaan ku wareejin doonaa guddida imtixaanka ama guddiga tartanka sabjagyada kala duwan ee su'aalaha iyo ardaydii ku tartamaysay waxaa inoo daadihin doonaa Mustafa Faliya tafadal. maamulu sheegay kaasoo u dhaxeeya labada galaas Form 2A iyo Form 2 maxay B. bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan idin rajaynayaa markaas way fiican tahay in aad si wanaagsan aad uga jawaabtaan oo degan waynuna bilaabanayna diyaar soo ma tidin waayahay galaaska ku horeynaya adan shaxay ilaalisan
ardayda tartamaysa iyo ardayda kale ee dhagaysanaysaaba waa inaynu anshaxa ilaaliyaan oo ay ka faa'iidaystaan waa ardayda tartamaysa waxaan faraynaa su'aasha galaaska la weydiiyo haddii uu gartay hadduu garan waayo galaaska kale ayaa ka faa'iidaysanaya galaaska kale ayaa maxay ka faa'iidaysanaya waa inuu qorto dhagaysta su'aasha koobaad waxa la yidhi explain sharax why sababta magnesium uu elementiga magnesium belongs ugu jiro to group 2 in a periodic table. I will start for 2 electrons in outer shell because it is a loss electrons in outer shell. وصحيح الرحمن الرحيم وهذا نحن ورقنا جروب كلا ما جلاس كلا وحوي يعني بيدا فون 2 بي وياي سؤال الله بعد أن يدينا واحد تاي describe واحد شرح دان the difference between وحاود حيا يعني elementي هي compound محاود حيا The difference between elementary and cardboard. Elementary waste of substance that is made up only table of atom. Cardboard waste of 2 or more that's chemical joined together. Good. Ardaygaas isaguna wuu saxay jawaabtaas. Isaguna jawaabta wuu saxay. Waaya intaas waxay ahayd su'aalihii chemistry ahayd. Waayay waxaan u galeynaa su'aalaha tarbiyadda. Waayay phone 2 ee su'aasha tarbiyadda koobaad ee idin weydiinayna waxay tahay ma dalla ala wahdaniyati Allah ma dalla ala wahdaniyati Allah ma maxay waxa ku tusaya kali ahaanta Ilaahay maxaa yeelay bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Ibn Saciid waxaan u tartamayaa galaas ee maxaa yeelay waxay noo sheegayaa inuu Ilaahay kaliyahay quraankiisa ayuu inoogu sheegay Ilaahay inuu kaliyahay waxaana cadeynaysaa ereyga ah ashhadu laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasuulullah waa sax way sax bismillaahir rahmaanir rahiim adarna waxaan wareegaynaa galaaska kala bida su'aasha diinta aynu weydiinayna ama tarbiyadda ay waxay tahay ma xukmu waa maxay xukunka man qatala qofka dila baa lagu yidhi mu'minan qof mu'mina camdan u dila si maxay badheera magacaygu waa Nusra Daawud Ogle waxaan u tartamayaa galaas B phone B saashan waxa phone 2 B saashan waxa tahay qofka qof dila in loo qisaaso loo dilay isagana waa sax su'aasha mina subject maadiska waxaanu ku bilaabaynaa galaaska phone 2 waa su'aashan waan qoraynaa waa su'aal maadista find the next 3 times value find the next 3 times maxaad baaraysaa saddexda xaraf ee ku xiga waxa lagu siiyay 1 3 jawaabtaas sidaas ay sax ku tahay tan Soomaa su'aashu waxa weeye find the value of d waxa lagu siiyay magacaygu waxaa cilmi una tartamaya galaaska phone 2 B su'aasha la weydiiyay waxay ahayd raadi qiimaha d waxa la isku dhufanayaa cross multiplication kadib waxa loo qayminayaa waxa kala socda mudar Soomaha jawaabtuna waxa weeyaan 40 jawaabtaas sidaas ay sax ku tahay arday fidelis waa maxay dhacdooyinka maxaad ku xaqiijinaysaa can you think aad u malaynay of physics of support inay taageerayaan the idea fikradaha dada particles ay qurubadu attract ay isku soo jiitaan one another midba midka kale magacay xayaad fitax sala jaawac anoo ku tartamay galaas phone 2 ee
su-aasha dadku dayo labaatan hadday brotrono iyo neutrono kala duwan yihiin atraagta way soo jiidanayaan laakiinse danabku hadduu isku mid yahay waa kala didayaan su-aasha waa inta raxmaan raxiim su-aashaas sidaas ayay khalad ku tahay abdi oo tartay foontuubi hadda isku dayo su-aasha waxaa jira xoog dhexeeya baarta kale oo mid kale soo jiidanaya raxmaan raxiim su-aashaas sidaas ayay khalad ku tahay olive oil cellulose waxa weeye intii carbon hydrate waad ka horqori intii saltsna waad ka horqori intii libidisana waad ka horqorisa waxaa ka mid ah sugarka saltis waxaa ka mid ah carbohydrate saltiga waxaa ka mid ah sodium chloride iyo iron sulfate lipidiska waxaa ka mid ah butter olive iyo oil okay su-aasha tan waxay keentay 08 point dhankooda waxaa munaasabada ka hadlay guddida ardayda oo ka sheekeeya marxaladaha ay soo martay hawshan iyo weliba ardaydii guulaysatay oo dareenkooda ka hadlay munaasabadan ay guusha ku raacday form 2B oo jaa-isooyin la guddoonsiinay waxaa kasoo qayb galay madasha gudoomiyaha waxbarashada ee degmada iyo guddida waxbarashada ee degmada oo dhammaantoodba hadallo dhiirigeliya dadaaran isugu jirta u soo jeediyey. Today I am going to talk a lecture about the win of the Form 2B, and I am happy to see that guys is a win. I am thanking the Form 2A that didn't win. magacayga waa Farxaan Saalax Abdi waxaan u tartamay fasalka labaad ee B waxaan maanta la tartamay galaas ka dhigaya Form 2B alxamdulillah waan guulaysanay macluumaad waxaan jirtay galaaskii namba xariifsan galaas kala xariifsan marba galaas ku jirtay laakiin maanta waa la arkay galaaska xariifsan iyo wadaraya labada galaas ay ku tartamay Form 2 iyo Form 2B iyo Form 2A aad bay horta u fiican yihiin tartan aqoonada soo bandhigeen ragga horta tartanka way yimaadeen meesha iskaaleen waxa lagu kala guulaystay ma jirin the 0.2 waxa wax la isdheeriyo ma jirto way iskeeneen aad bay fiican yihiin ku loo guulaystay aad bay fiican yihiin way dadaaleen waxaan leeyahay halka dadaalka sii wada maadaama ay 0.2 bari waa guulaysanaysan insha Allah taala rag guulaysan waxa leeyahay hambal sare ee degmada Garadag waxay u muuqataa inay yihiin arday diyaarsan xagga akhlaaqi ahaan xagga waxbarasho ahaan waxaan u aragnaa inaanu nahay arday ay macallimiintooda iyo maamulkooda uu leeliyay gudoomiye waxa weeyaan gudoomiyaha waxbarashada ee degmada maamulaha waxa weeyaan dugsiga sare waxa weeye salaad guddida waxa weeyaan horumarinta waxbarashada ee degmada waxa weeye ardayda guddida waxa weeye waxbarashada waxa weeyaan halkan fadhida iyana ardayda kale halkan waxa weeyaan aanu ku guddoonsiin doono insha Allah biidmillahi kariim waxa weeyaan xafladan waxa weeyaan loo qabtay lagu waxa weeye la guddoonsiinayo waxa weeyaan tartankii ay ku soo guuleysteen ay waxa weeye galeen dhammaan waxa weeye waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halkan waxa weeye waa goob waxbarasho waxa lagaga hadlaana waxa weeye waxbarasho iyo waxa weeye dhirinteed marka waxaan kula talinayaa waxa weeyaan cid walba ama guddi ahaato ama macallimiin ahaato inay waxa weeye waxbarashada waxa weeye qayb ugu muhiim waxa weeye ka qaataan oo waxa weeye meel haddaan waxbarasho jirin waxa weeye waa meel waxa weeye lagu lumay oo waxa weeye baadinimada bay waxa weeye kow ka tahay ardaydana waxa weeye waxaan kula dhiirin gelinayaa inay wax bartaan oo dadaalkooda halka ka sii wadaan oo sii laalaabaan oo intii wax weeyaan ay awoodi karayaan wax weeyaan waxbarashada wax weeyaan ku dadaalaan oo waxbarashadu halkan iskuulka qura maaha wax weeye marka suuqa la joogana wax weeye waxbarashadu ay muuqato oo dhulkii wax lagu dhiganayay dadaalkii waxa weeye qofka ardayga wax weeyaan dhaqan ahaan iyo waxa weeye markuu joogo waxa weeye suuqa iyo markuu iskuulka joogo waa inuu isku mid noqdaa oo dhaqankii wanaagsanaa ee halkan iskuulka ku hayseen markaa suuqa joogtaana waxa weeye waa inuu idinka muuqdaa waxbarashada waa inay muuqataayo ardayga wax weeyaan iyo qofka ardayga ah ee wax yaqaanaa waa inaanay waxa weeye markay suuqa joogaan aan isku qasiminin oo dad waxa weeye la kala yaqaano oo la kala duwan ay noqdaan qofka waxa weeye cilmiga waxa weeyaan la inuu noqdo wax weeye leeyahay calaamad gaar ah oo uu kaga duwan yahay barigan anigu wax dhigan jirnay wax weeye dee qofkii lagu arko isagoo qof kale waxba dhigan la socda dembi buu ahaa iminka cidina wax weeyaan kontaroolkaas weli ma shaqeeyo laakiin waxa loo baahan yahay in adinku iswaanisaan
oo markuu qofkii dugsigana joogo waxa weeye dee caqli waxa weeyaan da iyo caqli u dhimani ma jiro marka inaad waxbarashada sii laalaabtaan oo sii kordhisaan waa isku guda jiro oo barnaamij wuxuu ku saabsan yahay guddiga horumarinta waxbarashada ee degmada oo shir ku leh halkan macallimiinta dugsiga sare iyo guddiga waalidka waxbarashada ee dugsigan bay shir leeyihiin guddiga waxbarashada heer degmo horumarinta heer degmo barnaamijka kale ee jiraana waxa weeye tartanka ardaydu tartantay mahadnaqooda iyo jaa'isadahooda iyo abaalmarintooda labadaa mawduuc baynu halkan isugu nimi saaka waxaan u malaynayaa tartankan loo qabtay ardayda inuu kii ugu horreey yahay baan u malaynayaa ee lagu tartansiiyo arday hadday tahay dhinaca aqoonta waxbarashadii ay soo qaateen iyo mid sugaaneedba soo kuma jira mid sugaaneedna waa tartankii ugu horreeyaan u malaynayaa aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa ciddii soo abaabushay iyo ardayda ka qayb gashay intaba aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa xagga suugaanta waxaan u malaynayaa berigii hore dee awalba garadag waa lahayd rag gabyo fara badan waa lahayde mar haddii ardaydii lagu tartansiiyey suugaantii waxaan filayaa in hadraawina inaga soo bixi doona baan rajaynaynaa waayo dee isba markii hore arday buu ahaado halkaasu ka soo bilaabay suugaanta aad bayna muhiim u tahay in suugaantu waxay ka turjuntaa inta badan dhaqanka bulshada marka haddii ardaydii dhaqankeedii beri dhexdaasa waxaa jiray arday imtixaan laga qaaday dugsiga sare oo waxay garan waayeen hasha sidig bay garan waayeen waana rag garadag joogay ilaa iyo maxaan ku dhadaa aan meel la qaban dabeedna waxay garan waayeen sidigtu waa maxay baa lagu yidhi sidigtiiba la yaamino garan waayeen macnaa ardaygii dhaqankiiba uma jeedee dhaqanka lu inta badan daawanaya ama ula sheekaysanaya marka haddii suugaantii ardaydii layidhi ku tartama waa arday layidhi dhaqankiina bartoo kale waana muhim ardaygu dhaqanka u bartaa inuu ugu horreeyo kiisu aad bay muhiim tahay waayo markuu arday yahay haddeer waddamadaa hore u maray waxay nooga sheekeeyaa dhaqamadooda iyo magaalooyinkooda iyo horumarka waddankooda dhaqankeenna markaynu baranno waxay nagu waajibay inaynu saas in leeg aynu ka sheekayno websaytyada gelinno waxaasoo dhammina waxay ka abuurmayaan ma haddii sugaantii lagu tartamay oo gabayaaga soo baxay waa kii ma jiraa mar haddii sugaantii lagu tartamay waxay la tahay waa arrin aad iyo aad mudnaanteeda iyo ammaanteeda leh hadalka badin maaye waxaan halkan aad ugu hambalyaynayaa ardaydii tartantay kuwa guulaystay iyo kuwa laga guulaystay labadaba waayo guushu dee waxlay laba garantay dee midun baa garta hela marka qolada laga guulaystay siduu sheegaya guddoomiyihii axmed aadan inuu isaga habarmaray qofta cidda haddii laga guulaystay baray guulaysanaysaa iyana waxaanuna rajaynaynaa inaynu halkaa ka sii wadno oo tartankeennan aynu u bandhigno degmooyinka inagu dhowdhow aynu la tartano iyaga laftooda aynu ka gudubno heer degmo oo masalan ceelaf weyn oo kale inta badan dhinaca waxbarashada gobolka sanaag marka la yidhaahdo innaga madaxa uska u marsana oo berigii dhoweydee 35 arday baa foomfoorkeena ka baxay 15 waxay noqdeen 17 waxay noqdeen A 17 waxay noqdeen B hal baa si ka noqday Soomaaliya ma jirto dee dugsi inta in laga ka gashay ma jirto hareena waynu ogeyn hareena waa u ogeynoo sanad walba foomfoorada gobolka sanaag cidinaguma haysato xaggooda hore cidinaguma haysato laakiin weli maynaan gaadhin xaggii galbeedkii weli maynaan gaadhin nimankaa iyagu aad moodo inay xaqba u heleen 10 arday ugu sarreeya taa weli maynaan gaadhin baan u malanaya bal insha allah ardayda sanadka joogtaa waxaad moodaa in muuqaalkoodu u eg yahay inay gaari doonaan 10 lambar ugu sarreeyay gaari doonaan bay u muuqdaan waxaad ka garanaysaa akhlaaqdooda iyo adaabtooda waxbarashada ardayguna haddii ay dushiisa ka muuqato
wuu fahmay waxbarashadii buu gartay weeyi marka anigu waxaan u arkaa ardayda dugsiga sare sanadka joogta waxbarashadu dushooda ka muuqataa akhlaaqdooda iyo adaabtooda markay suuqa joogaan waxaad arkaysaa inaanay dhex gelin dadka bulshada ay ka aqoon badan yihiin iyagaa wada shira meelo gaara bay isugu yimaadaan suuqaasan maraan ugu tawaan eegaa meelo gaara iyagaa sheekaysta iyagaa dooda arrintaasuna waa arrimaha loo baahan yahay aad iyo aad muhiimka u ah waayo arday wax bartay maaha inuu la jaan qaado ama la saaxiibo ama la socdo mida waxba aqoon maaha waa inaad kala duwanaataan waa inaad isaga wax bartaa wuxuu sheegtaa adigu inaad la rafiiqdo maaha waayo isku IQ-ba ma hidin qof 12 sano wax la soo barayay iyo mid barakaco hadeer soo xirooday xagee sheekada iskala qaadi karayaan ama waa inaad adigu dib u noqotaa heerkiisa gaadhaa bay noqonaysaa wixii lagu soo baray intaad iska masaxdo aad heerkiisa kale gaadho iyo baad wada qabsan karaysaa runtii aad iyo aad waxaan idinku ammaanayaa waxbarashada aa wadaan heerka aad ka gaadheen ka aynu rajaynayno inaad ka gaadhaan mustaqbalka insha allah abaalmarina dee waxaa idinku le baan u malaya sidaa idinba u garanaysaan maamulaha iyo macallimiinta ilaa 99 soo taagnaa iskuulka haddii bisi loo qorayo iyagaa bisi loo qori lahaa haddii abaalgud la bixinayona iyaga abaalgud la siin lahaa yeelkadeedee waxa abaalgud macallinka inta badan ardaydu dee marka ay ka baxdo dugsiga sare ama dugsiyadaba ay ka baxdee ay heerar sare gaadho nin iyo dhif baa maamulihiisii xasuusta ama macallinkiisa xasuusta nin walba uu xasuustaa reerkii waxaas wallaahi hadduu shaqo yar helo waar odaygii islaantiibaa laakiin odhan maayo waar macallinkii beri wax ku soo baray tol xaguu ku nool yahay waxaan filayaa qoladiinnanu inaad ka bedelaan doontaanoo mar haddaa xasuusan tihiin wixii laydin soo baray iyo cid idinku soo tacabtay oo aad guddoomiyaha iyo macallimiinta kale ka tilmaanteen waxaan u malanayaa dee waa abaalgutaa lafteeda abaalguda qofku hadduu og yahay wixii la taray qofku hadduu og yahay in wax la taray iyo cidda wax tartayba hadduu og yahay waa abaalguda gudoomiyaha waxbarashada ee degmada maamulaha dugsiga sare ee ammaan secondary macallimiinta guddida waalidiinta ardayda ku tarsantay heerkooda waxbarasho ee labada class ah ka guuleystayna waxaan leenahay hambalyo ka lagu guuleystayna waxaan leenahay dadaal wacan iyagana intaas ayaan u soo jeedinayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad salaamayaa bahdiina saxaafadda ee iyaguna ka soo howlgalay ee jecel horumarka degmada iyagana u mahad celinaya wasalaamu calaykum waxbarashada ee degmada maamulaha dugsiga sare ee degmada Garadag macallimiinta dugsiga sare guddiga waalidiinta ee iskuulka secretary guddiga waalidiinta ee heer degmo ee horumarinta degmada Garadag lagu magacaabay oo anigu magacooda ku hadlayo iyo dhammaan ardayda ka soo qayb gashay munaasabadan tartanka loogu talagalay fidinta tayeynta waxbarashada ee degmada Garadag waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan idinka mahad celinayaa dhammaantiin dugsigan sare ee maamulaha dugsiga sare ee degmada Garadag oo aad iyo aad u qabanqaabiyey howlahan tayeynta waxbarashada ee degmada iyo macallimiinta dugsiga sareba iyo ardaydan dee soo ka qayb gashay munaasabadan aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dee barnaamijkan hadda uu salaad uu bilaabay uu wado oo dee horeba u dhici jirtay waxa weeyaan tayeynta waxbarashada ee degmada ay ka qayb qaadanaysaa waana barnaamijkii wasaaraddu ay soo bandhigtay ayay ka mid tahay marka aad iyo aad ayaan idinku hambalyeenayaa munaasabadda aa qabateen intii ku guulaystay iyo intii laga guulaystayba aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa barnaamijkan inaanu sii wadno oo dee halkaa aan la joojin ayaan idinka codsanayaa waxaa jirta dee waxaynu hadda samaysanay jaamacad baynu dhisannay awl secretary baynu taagnayn aqoonteenu kor bay u baxaysaa dee markaa waxaa fiican inaa tayeyntii waxbarashada ee iskuulkan ama iskuullada kaleba dee ama hoose dhexe ama ha noqdo ama sare ha noqdo waa in la dhiso tayeynta waxbarashada iyo kobcinteedaba iyo fidinteedaba dhammaanteedba in laga qayb qaato guddiga waxbarashada ee heer degmo oo maanta nagala soo qayb gashay xafladan jahaysasiinta waxaa kaloo mahad mudan guddiga waxbarashada ee dugsiga sare macallimiinta waalidiinta kala duwan ardayda gaar ahaan kuwa ku tartamay tartankan aqooneed
oo ah galaasada form 2yada iyo gruubka kale iyaguna ku tartamay halabuurka suugaanta inta mahad baan u soo celinaya waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta kadib kaliya waxa uu mudan inaynu ana soo koobaya hadalka inaynu barnaamijkan sida loo sheegay waxa weeye uu ku wajahan yahay kobcinta iyo dhiirigelinta waxbarashada kaasoo qayb ka ahaa barnaamijkii wasaaradeed ee uu markaas u sameeyey gudiyada kala duwan wasiirka waxbarashada iyo sayniska master torno aad iyo aadna waan uga mahad celinaynaa nidaamkaas uu sameeyey uu maxay tahay maamul gaarsiinta uu sameeyey daadinta uu sameeyey wasaaradda waxaa kaloo maanta halkan dee inaan u mahad celiyo ardaydii oo naga soo qaybtaan jaayisadoodii inaanu goobjoog u ahaano gacanta u gelino waxaan leeyahay de halkaa aynu ka sii wadno iyo inaanu maalin uun ku ekaane kobcinteenna waxbarasho iyo isdhiirigelintiidankii ilaa iyo aynu ka gaadhno hadafkeenna waxbarasho ka dugsi sare ahaan arday inay noqoto aqoontiinu mid saamayn ku yeelata deegaanka waxbarashadu sidaa laga dhawaajiyaba waa inay saamayn yeelato maadaama aad tihiin modalist tihiin dadkii lagu dayanaya aad tihiin waxbarashada lagaga dayanayay asluubta lagaga dayanayay istikalka lagaga dayanayay aqoonta lagaga dayanayay inaynu noqonno markaa kuwa haga dadkooda iyo mujtamacooda ku dhiirigeliya waxbarashada ku soo dhoweeya waxyaabahaas oo dhan waxa weeyaan waxaan kaloo halkan uga faa'iidaysanaya jaaniskan dhammaan ardaydii ka baxday dugsigan ilaa iyo xilligii academic 2000 ardaydii ugu horreysay waxay ka baxday baan filayaa 2003 ilaa iyo haddeer oo waddada la sii hayo ardaydan waxaa laga codsanayaa horta wax badanna waa qabateen waana idinka mahad celinayna gaar ahaan xilligii dhismaha iskuulka barnaamijkii iskuulka markii tunaabigu ay saamaysay waxqabadkii wanaagsanaa nala qabateen baan aad iyo aad idinka mahad celinaynaa ilaahay idankii waxaanu leenahay waa inaad abuurtaan barnaamij dhiirigelineyd oo aad ku dhiirigelinaysaan ardayda dugsiga sare hadday tahay dhinaca tartamada aqoonta waxyaabaha kala duwan waxqabadadooda kala duwan dibna u soo xusuusataan oo aad samaysaan awalba dee waad wadeenay laakiin si aad xoojisaan iskuulkuna wuxuu u baahan yahay waxyaaba uu u baahan yahay baa jiro aan laydinkaga fursanayn hadday tahay waxa weeyaan baahiyaha waaweyn waxaa ka mid a iskuulku wuxuu u baahan yahay IT barnaamij horena waan ku duubay in kombiyuutarro ayaa loo baahan yahay oo ardaydu wax ku barato maadaama ardaydu ay yihiin kuwo weaknesska ah xagga IT-ga marka ay tagaan jaamacadaha oo aanay kula tartami karin ardayda kale dhigooda kula tartami karin aad iyo aad baanu arrintaa ugu jilicsannahay waxaa kaloo qodobka labaad noo ah inaad nala samaysaan hool kaasoo ah in la dhigo IT-da kombiyuutarada la dhigo barnaamijkii buwaagtu waa nugu filan yahay isagu buwaagtu waxa weeyaan aad iyo aad way badan yihiin marka inaad barnaamijka nala qabanqaabisaan ayaan ka codsanayaa qoladaas waxa weeyaan gaar ahaan dee raggaa jaaliyadda jooga iyo dhulkaa jooga iyo kuwa gudaha joogaba waa ardaydii ka baxday dugsigan oo ay samaystaan foundation garadag secondary waa horuu samaystaan waan filayaa aad iyo aad baad mahadsantihiin intii gabagabadii shahaado sharaf la guddoonsiiyey maamulaha dugsiga sare ee Garadag Secondary School Salaad Jaamaca galad male qabyaaladee waa gubtaan waa cudur gadaafaho guweyn heer laguma gaadheen waa gunnimo dhalinyarada geeskow gacalayaal galad male qabyaaladee waa gubtaan waa cudur gadaafa